nimid halkan in hambalyo iyo duco aan idinku darno xafladan quruxda badan waxaan idinka sida salaan oo soo wakiishay gudoomiyaha xisbiga Ucud Faysal Ali Waraabe oo mar walba ka soo qayb gali jiray xafladiina sanad walba laakiin sanadkan ay suurto gali weyday hambalyo iyo duco weydii soo diray isaguna waxaan doonayaa inaan laba qodob taabto oo ah bal tacliintan maanta iyo barigii hore sidii ahaan jirtay Hargeysa aan waxaan ku dhashay Hargeysa kuna koray iskuuladana waxaan dhigtay dugsiga hoose Sheekh Bashiir dugsiga dhexe biyo dhacay dugsiga Sana Faarax Omar oo Faysal Farfarle isku class baan ahayn waa ka halka fadhiyay marka ما شاء الله waxaan bariga tacliintu opportunities aad haysataan imkaan lagu maanan haysan oo idinku waxaad haysataan waxyaabo badan library aad haysataan internet-kii baad haysataan online-kii baad wax walba ka geli kartaan anaga Hargeysa oo dhan waxa furnaan jirtay malaha hal maktabad oo carabta oo la oran jiray maktabada thaqaafiya oo masaaridu lahayd oo carabida buugaagta aanu ka qaadan jirnay haddana sida aamino moogaba hore u sheegtay de basas iyo nus saac iyo wax amaanaan lahayn anu xaafadda tog dheer idaacada agteeda ay xaafadoodu ahayd ilaa Faarax Omar lug baan ku tagi jiray kana aan noqon jiray haddana de dad dadaal badan baanu ahayn oo waxbarashadoodu aad u adkayd oo iskuuladii markaa jiray Sheekh iyo Amuud iyo Faarax Omar iyo First July oo imika jaamacadan Hargeysa waxa ay dugsiga Burco ee institute-ka ku ugu weynaa bay ahaayeen wax laga baran jiray ardayduna aad bay u dadaalaysay wax buug walba aragnimo loo akhri jirnay si aan wax u barano idinku waan dagaalin si fiicantina maanta xaflad waxaad joogtaan waalidkiinii baa jooga asxaabtiinii baa joogta oo farxadan maanta idinkala soo qayb galayso waa ma sha Allah anigu Mareykan baan ku barto markaan jaamacadda aan ka qalajibiyay Miami University meel cidla oo barafku daaya shahaado ku qaadanay qof uga joogin uu jirin marka aad baa horta looga si fiicantiin waalidkiin iyo cid walba ku wada jooga waxaan doonayaa horta tacliintu waa talabaad ha iloobina hawlaalkan quruxda badan fadhidaan iyo nidaamkan quruxda badan mar walba wixii la soo maray wadankan soo maray ha iloobina iyo wixii jihaad loo soo galay waa tii aamnimo sheegtay ardayda waa la seexin jiray afarta wixii ka bilaabma dhalinyarada lama ogoleen Hargeysa oo kale inay meelaha marmaraan ay soo jeedaan dadaal iyo dagaal ayaa halkan lagu soo gaaray mar walba hay loobina taariikhda Soomaaliland ha u qaadanun inay sida mar walba qurux badneedo dhalinyarada oo meelan arag dhibaatada dagaal anu waxaan ahaa gudoomiyaha SNM ee Mareykan iyo Canada ahaa marka waxa la soo galay dagaal adag baa la soo galay Hargeysa 90-yadii hadda halkan arki lahaydeen sida ahayd markii wadanka lagu soo noqday waad yaab lahaydeen mar walba haniyad jabina haddii aad bulsho qaweydo waad heli doontaa gaalada waxay tiraahdaa failure is not an option bay raadaan inaad guuldareysato weliga option ka dhigan mar walba albaab kala ku banaan haddii albaab ku bixi waayo try again mid kala ku furmi doona ha caroonin oo magarsa dhalinyaro badan oo arkay intay muxoogaa shaqo waayaan ama xamar tago oo meelaha Soomaaliland ka soo caaya marka mar walba waa dadaalkeena muujisaan aad wadannimadiisa muujisaan aad ogaataan wixii la soo maray dalkan uu soo maray iyo halkankii dheeraa loo soo galay aad baad u nasiib fiicantiin arday qurux badan baatiin maadooyin badan baad barateen oo wadanka anfacaya insha Allah kuwii dalkooda iyo waalidkood iyo diintooda baa anfaca ilaahay idinka dhigo waana salaamantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh odayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga Ucud aad u mahadsan yahay wuxuu ka sheekeeyey taariikhdii hore ee waxbarashada iyo hadda siday tahay maalmihii waxaa Facebooka lagu soo qori jiray dalka meel fog baa laga keenay waxbarashadana meel fog baa laga keenay waxa laga keenay xilli taasoo lagu fadhiisan jiray weliba loola jiray qofka taasadaada sii qaado si aad berri aad u soo qaadatid haddii kale arday kale ayaa ka qaadanaya marka xilli kuraas la'aan lagu fadhiisan jiray ayaa jirtay
xilli geed hooskii wax lagu baran jiray ayaa jirtay maantana adoo gurigaaga jooga ayaad online wax ku baranaysaa waxa weeyaan waa horumarka aynu